inantani Miss World oo magaalada Muqdisho ku sugneed mar aan wacay telefonkeeda saacad ka hor waxa iga qabtay Happy gabadha caanka ah ee baraha bulshada qaasatan TikTok caanka ka ah ee aad intiina badan garanaysaan inantu waxay ii sheegtay marka iyada iyo inantani inay xalay wada joogeen Goljano meesha lagu magacaabo 11 iyo bar saqda dhexe ama 5 saac iyo bar xalay saqda dhexe bay telefonkeeda u dhiibtay kadibna qof bay raacday dib dambana looma arkin hooyadeedu ay ka walwalsan tahay ehelkeeda sidoo kale asxaabteeda sidoo kale inantaana ilaa iyo hadda dib dambe uma soo laaban warna lagama hayo marka asxaabteeda cid kasta ee meel ku aragtaa ama la socota macluumaadkeeda ama meel ku sheegi kartaa waxaan ka codsanayaa in ay commentiga igu reebto halka aan kala soo xiriiri karno si hooyadeed loo gaarsiiyo wad dareemi kartaa beer wax dhalay mar waliba walwalaya hooyadeed aad bay ugu walwalaysaa asxaabteeda sidoo kale marka asxaabteeda u soo duceeya qofka bini aadamkaan ah noloshiisa isaga xor u ah wuxuu doonaa buu sameyn karaa ilaahay cid ka weyn ma jirto waxa laga yaabaa arrimo kale inay ku maqan tahay laga yaabo in la afduubtay laga yaabo inay xaalad kale ku sugan tahay hadda lama sheegi karo waxa iyada ku sugan tahay marka u soo duceeya gabadha waa gabar wanaagsan waa gabar qalbi wanaagsan oo ma sha Allah والسلام يا أصحابي ميلو بوجوكتان دتكو أنت بدل وحي ودينيان أرنتا Miss World قبل ما قنيت أنت بدل كومنتيين اللي يودينا يحليين أخبار ما لقاها يا أرنتم مباران كذا هذا قف مسلم بنا والله بالله تالله إن أنا بين إيش شيئين سلا ذيكو أكتب بنا نقول أوجا هاي روني بين واحد تاينا ما قرنا يو لكن سلا أرنت يبصوا جارتي قبل ولا لا هاي ما أنت واحد على مركز حلية دي دورة دي بروحها وعي مجال المقدسو قبل يدو صاحبيه هي gabar baa marka telefoon iga qabatay gabar kale bay igu dhiibtay iyadoo dhahaysa wali akhbaar laga ma hayo tii ay igu dhiibtay telefoonka baan la sheekaysanay marka video call bay igu soo qabatay wajigeeda bay wajiga dhaawacay baa kaga yilay markaan weydiiyay wajiga waxa kaga dhacayna waxay ii sheegtay xalay iyagoo gabdho la socdaan inay arkeen wiil iyada markii ugu dambeeyay Miss World ay la joogtay wiilal kale baa la socday marka wiilka ilaa iyo 4 wiil dabadeed wiilashii bay ku dhageen waxay isku dayeen markii inay wax weydiiyaan ay ka daba qeeliyaan bisoolada bay u soo baxeen gabadha marka waxay sheegtay dhaawacayda inay tahay bisoolada afkeeda hore oo mid kamid ah wiilasha oo wajiga kaga garaacay oo dhaawac gaarsiiyay liifka hore ee bisoolada sida darteedna dhaawaca meesha uu ka soo gaaray gabadhu marun bay ii sheegaysaa ma been bay ii sheegaysaa garan maayo laakiin waxaan hubaa oo kaliya gabadha dhaawacyada wajiga ku yeelay inay u ekaayeen af bisoolad inay kaga dhacday dhaawacyaduna waxay ahaayeen dhaawacyo cusub oo 24 saac gudahood qofka markuu dhaawac gaaro waa dareemi kartaa goobtu way cusub tahay waxayna ii sheegtay in ilaa ay hadda aanan lahayn dhaawacaasna uu yahay dhaawac ka soo gaaray xalay toole markii ay la kulantay wiilasha marka akhbaarta inta